رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. كحنا وريق الميديا. السلام عليكم ورحمة الله. طاوديال ميلو البضعانم كاكتشوكتان كسولو هذا موضوعنا مانتا وإن كهالي الدونو سيدا لوغا فايديستو وقتيغا ugu horeyn waxaan dul istaagi doonaa oo sharxaad ka bixin doonaa muhiimadda uu leeyahay ka faa'iideysiga waqtigu kadib waxaan ku xijin doonaa saddex qodob oo cidii dhaqan gelisa ay si cajiib leh waqtigiisa uga faa'iideysanayo hore aynu socono barnaamijka waxaan ogsoonahay dhamaanteen in hal kamir uu ka kooban yahay 60 ilbiriqsi halkii saacada uu ka kooban yahay 3600 oo ilbiriqsi halka 24 saacadood ay maalintu ka kooban tahayna ay yihiin 8400 oo ilbiriqsi su'aashu waxay tahay maxay dadka qaar ugu filnaada waqtigaasi inay maamulaan shirkado waaweyn halka dadka kalena iyagoo haysta waqti inta leeg ay ku guul dareystaan inay qabtaan hawlo yar yar faraqa u dhaxeeya waa ka faa'iideysiga iyo maamulitaanka waqtiga nolosheenuna waa minutiska iyo saacadaha socda ee baxaya waana qayb kamid ah cimrigeeni oo tagtay weeyaan kolba in kamid ah markayna dhaafto haddaba haddii aanad baran sida looga faa'iideysto waqtiga waxa laga yaabaa inaanad wax badan qabsan noloshaada adduunka oo aanad ku guuleysan waa ku muhiim inaad barato sida loo maamulo waqtiga marka laga sheekeynayo sida loo maamulo waqtigana loolama jeedo in waqtigaaga la maamulayo ee waxa looga jeedaa in runtii si aad iyo aad macquul ah aad waqtigaaga aad uga faa'iideysatid mowduuceenan maanta waxa ku saabsan yahay sidii aad waqtigaaga aad uga faa'iideysan lahayd ee runtii faa'iidada ugu badan aad uga heli lahayd waxaynuna ku soo qaadan doonaa saddex qodob qodobka koobaad waxa weeyaan dhammaan qorshe waxaad rabtid inaad qabatid beritoole markaad habeenkii hawlo dhan aad iska dhigtid meel ay hurdadun ku hadhay intaanad seexan waxaad isweydiisaa beritoole maxaan qabanayaa kadib liiskaree dhammaan waxyaabaha aad isweydiisay ee qorshaha kuu soo geli doona beritoole muhiimka ku ah haddii halkaas dul istaagno dadku way ku kala duwan yihiin waxyaabaha ay qabanayaan qof walba waxba muhiim u ah marka adiga shakhsiyan wixii muhiimka ku ah warqad yar ku qoro amba buug yar u sameeso waxaad rabtid inaad qabatid beritoole inaad haddaba yeelatid buug yar amba warqad yar oo aad ku qoratid waxaad qabanaysid waa qodob aad u muhiim ah haddii aad samaysan weydina sidaa waxa dhacaysa in kolba marka aad subaxii aad soo toostid aad qabatid kolba wixii niyadaada ku soo dhaca waxa kale kugu iimaanaysa in waxyaabo aanad ku talagelin ay kugu soo baxaan waxa kale kugu iimaanaysa inaad qabato waxay garanaysaa ahayd inaad qabato oo aad ku mashquusho waxaana ahayn inaad qabatid tusaalahan dalka ku soo celino waxa kugu iimaanaysa waxay ahayd inaad qabato inaad iloodo oo aad ku mashquusho waxa aana ahayn inaad qabatid oo muhiimad weyn agtaada aan ka lahayn marka buuggan yar ama qoraalkan yar waa uu ku hagayaa ugu horeyn xilliga ugu fiican waxa weeyaan habeenkii inaad qorto oo aad subaxii soo waabarisatid adiga oo garanaya subaxa saaka waxaad qabanayso iyo halka aad wax ka bilaabiso waxaana ku muhiim ah hawlaha isku midka isku dhowdhow inaad ka dhigtid isku waqti tusaale ahaan haddii laga rabo inaad qabato oo qorto 6 ribood waa inaad ku beegtaa waqti isku mid ah laakiin sax kala baabaahin oo tusaale ahaan haddaad tiraadid mid waxaan qorayaa subaxii midna casarkii taasi waxay ka qaadanaysaa waqtigaaga oo dhan sida awgeed isku waqti isku mid ah ka dhigo waxa kale ku muhiim ah inaad qortid waxaad qabanayso adigoo aan sheegayn minute kastaba waxaad qabanayso waayo haddaad tiraadid waxaan sheegayaa minute walba waxaan qabanayo waad ku dabaqaysaa sidaas wanaad waqtiyada qaar aad ugu talagashid inaad naftaada u raaxayso ya hawlaha kale kugu imaan kara emergency-ga ee aad qorshahaaga kugu jirin qodobka labaad waxa weeyaan waa inaad u kala horeysiiso oo aad u kala hormariso sida ay u kala muhiimsan yihiin qodobkani waa qodob aad iyo aad u muhiim ah inaad waxaad qortay oo dhan aad u kala hormarisid sida ay u kala muhiimsan yihiin tusaale ahaan shaqaale ayaa tahay waa inaad isweydiisaa waa maxay qodobka ugu muhiimsan ee haddaan ka tago beritoolo ay ciqaab ka ratimayso kaasi waxa uu noqonayaa isagu shayga kugu muhiimsan waa maxay shayga labaad baad isna isweydiinaysaa
isaguna ay muhiim tahay inaan sameeyaa britole sidoo kale waa maxay baad isweydiinaysaa shayga saddexaad ee muhiimka ah inaan qabto britole kadib dhammaan waxaad ku qoraysaa warqad ama buug yar waxaad u kala horeysiinaysaa sida ay u kala muhiimsan yihiin waxaanad ugu horeysiinaysaa qodobkaad isleedahay haddaad qabatid hawsha intii ugu muhiimsanayd waad qabatay waxaanad ku xigsiinaysaa ka ku xiga ogowna waxaad qabanayso waxay soo hoos galayaan afar shay shayga koobaad waa shay aad u degdeg ah oo laga rabo marka inaad qabato muhiimna ah tusaale ahaan ka soo qaad inaad shaqaale tahay lagaana rabo 6 ribood amba tusaale ahaan 5 ribood maamulaha uu ku yiri hadda ii keen oo riboodyadii aad diyaarsay tusaale ahaan maamulaha uu ka raba hadda ii keen buu ku yiri ugu horeyn waa muhiim waana degdeg waayo saameyn ayuu ku leeyahay shaqada company-ga waa inaad si dhaqso dabadeed u diyaarsaa qodobka labaad waxa uu noqon karaa waxa jira wax muhiim ah laakiin si aan degdeg ahayn tusaale ahaan waxa report laga rabaa 4 bilood ka bacdi baa laga rabaa waa muhiim inaad qorto first ugu dambayna de chance badan baad haysataayo waxaad haysataa waqti 4 bilood ah banidi aruntu haddii sidaa tahayna waa inaad qorshahaaga ku darsataa number 3 qodobka saddexaad waxa jira wax muhiim aan ahayn degdeg aan ahayn tusaale ahaan waa iskaga jirka facebooka iyo ciyaarista gameska bilaa ujeedalaan waxyaabahaasi muhiimna maaha degdegna maaha waad iska dayn kartaa waxaana fiican inaad iska yareysid intaad iska yareyn kartid qodobka afraad waxa jira wax degdegna aan ahayn waxa jira wax degdeg ah laakiin si aan muhiim ahayn tusaale ahaan qof aad istaqaanaan baa ku soo garaacay ugu horeyn waa degdeg waa inaad la hadashaa laakiin se muhiim ah waxa laga yaabaa inuu kala hadlayo hawlo aan muhiimad weyn lahayn mar haday sidaa tahayna yare inta telefoonka ku hadlisid amba dib u dhig oo la eego xilli hawl muhiim oo qorshayaashaadii aan ka mid ahayn aanad gacanta ku hayn badanka noloshaadana waxaad sameynayso amba aad ka shaqeynayso waxay noqon karaan afarta qodob ee soo sheegnay oo kala ahaa wax muhiim ah degdegna ah ka haduu yahay si degdeg ah u samee waxa noqon karaa shay muhiim ah laakiin si aad waqti aad u hayso ka haduu yahay qorshaha ku darso waxa noqon karaa shay muhiim ah degdegna aan ahayn ka haduu yahayna isaga iska dhaaf oo waxa noqon karaa tusaalaan sida gameska ciyaarista gameska Facebook isticmaaladiisa iyo goobaha fadhi ku dirirka fadhigooda meelaha fadhi ku dirirka iyo internet ko sketchid bila ujeedada la'aan waxyaabahaas oo dhan marka waxyaabahaasi muhiim kuma aha waa iska dhaafta qodobka saddexaad waxa weeyaan iska ilaali inaad dib u dhigto hawlaha aad qabanayso su'aashu waxay tahay ma jiraan hawlo keensanaya inaan iska ilaaliyo hawlahan dib u dhigayo jawaabtu haa weeyaan markaad qorshe dejisato ballanka la gal naftaada oo dheh waxaan waan qabanayaa britole naftuna waxay fartaa dadka maanta waxa loo baahan yahay naftaada hoggaankeeda aad qabatid oo aan iyadu ku talin adigu talisid qodobka labaad ee halka raacayo waxa weeyaan hawshan aad tiri britole waxaan qabanayaa midmid u kala qaad oo kalba mid qabo dhowr arimood mar kaliya taha wada qaban isku day markiiba inaad qabato hal mid ka inta dabadeed qabato si fiican aad qabato oo aad u gudubto ka xiga dadka intooda badan waxa laga yaabaa inay isku wadaan intaasoo hawlood taasina waxay sababtaa intuu shay bilaabo inuu ka tago oo u wareego shay kale taasina maaha mid muhiim ah guulna lagu gaarayo wax wanaagsanna maaha markaad qorshe dejisato sida ay u kala horeeyaan inaad ugu horeysiiso oo qodobka ugu horeeyaad qabataa muhiima oo aad ka dabadeed meel fiican aad ku hubsato oo si fiican u qabato si fiican u dhameystirtid kadib aad u gudubtid ka xiga mabda'a saddexaad ee arinta raacaya waxa weeyaan runtii muhiimkana ah waxa weeyaan isku waqtiga aad soo jeedo niyadaaduna fiican tahay inaad bilowdo koogu muhiimsan haddii aad subaxda hore active tahay niyadaaduna nashaad dareemso firfircooni isku day waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad qabanayso inaad ka dhigato subaxdii laakiin si ha ku beegin waqti aad caajistahay sababtoo ah naftu waa diidaysaa waxa kale qodobka ku raacaya markaad hawl bilaabisid koogu culus ku bilow ha ku bilaamin koogu fudud ee waqti yar ka qaadanaya waayo haddaad ku bilowdid koogu fudud
naftu waxay arkaysaa inuu ka dambeeyo mid culus naftu way diidaysaa oo way ka soo horjeesanaysaa sidaa awgeed markaad dhamayso ka ugu adag naftu waxay dareemaysaa raaxo iyo nafis kuwa kalena adigoo awood leh baad dhamaynaysaa qodobkaas waa qodobka ugu dambeeyay maanta barnaamijkeena intaynu ku kulmi doono barnaamijkani lamid ah waxaan idinkaga tagayaa dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa inoo kulanti dambe iyo muuqaalka xiga